بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، وحان جونا مكة المكرمة، وحان إيماني مسجد العائشة. مساجدك صوبت عائشة لوغو مقعدرين وان شرح دونا. وحان كلام براروجينيا dadkii oo cimrada aan isla imaanay qaar raba inay u cimreystaan waalidiintooda ama ayaga raba in mar labaad oo cimre ay qaataan. marka waxaa la rabaa in ay imaadaan masjidkan oo magaciisa la yiraahdo Aisha Tanciim Allah. qofkii oo cimre rabo mar labaad waxaa la rabaa inuu ka soo baxo Makka, masaajidkana laga soo xarmanaa sida khalaaiqda idinka u jeedaan gadaasheen inta laga xarmanaa. sababta masaajid Aisha looga bixin waxaa waaye umuna Aisha radiyallahu anha ka soo xarmatay markii oo ayada macduur ay noqotay ay nabiga ay u sheegtay walaalkeeda lagu daray Cabdiraxmaan bin Abi Bakr waxaa la dhahay bax geeya la dhahay masjidkan ayada ka soo xarmatay umuna Aisha. magaceed markaa waxaa looga daray masjidul Aisha. xaafid waxaa la Tanciim la dhahaa. marka dadka waxaa la rabaa markaa qofkii rabo cumro masaajidka ha imaado. sababtoo ah Makka adoo joogto ama hoteelkaada joogto ma xarman kartid ilaa qofka xajka loo ogol yahay. qofka xajka oo xujaayda markay Makka ay soo galaan oo maalinta oo la aaday midna dharkooda xiranayaan Makka ay ka baxayaan. laakiin adiga cumra tahay, qofka cumradana waxaa la rabaa inuu Makka ka soo tago oo masaajidkan u imaado. taasaa la rabaa, waayo su'aalooyinkan badna waana la weydiiyey. marka insha Allah aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin xaj wa cumra Cabdishaa Cabdi iyo Sheekh Cabdiqaadir Daarul Hijra, jazaahumullahu khayran. ayaga noo fududeeyo cumradan. marka insha Allah waa mahadsan yihiin. marka jazaahumullahu khayran. si fiican ayaa cumrada aan u gudanay. taqabbal Allahu minna wa minkum a'maalu saalih. ilaahay naga aqbalo. wajazaakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الواحد